السلام عليكم daawadayaal waa Boolimoog Media aad uga barateen halkan in idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xiisaha weyn waa maalinimo Khamiisa 4tii bishii 6aad sanadii 2020 waxaanu ku bilaabeynaa warkeena madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dini ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay qodobka 4.5 isaga oo ka hadlay arintaasi waanu idiin haynaa warbixinteeda رئيس الوزراء dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa uu furay shil caalami ah oo iska la seega kaashanayo dawladda talaalka COVID-19 waxaan kaloo idiin haynaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo markii saddexaad ka hadlay arinta dilka ninkii madowga fadlan hadii taa markii ugu horeysay channelka subscribe like saar gambaleelkana furusi aad noola socotid adiga oo mahadsan waxaan ku bilaabanaa hadaba daawadayaal maalinimo Khamiis ah sidaan idiin sheegnay 4tii bishii 6aad 2020 madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Siciid Cabdullaahi Dini ayaa waxa uu si adag uga soo horjeestay in doorashada soo socoto lagu maamulo qaabkii 4.5 amaba wax lagu soo xulo isaga oo yiri waanu ka soo horjeednaa marnana ma aqbalayna in qodobkani dastuuriyan laga dhigo amaba sida hadda aan ognahay hay'adaha ku howlan inay ka hawlgeliyaan dalka inay ku sharciyaan qodobka 4.5 oo ah buu yiri wax aan habooneen mana dul qaadanayno mana aanu aqbalayna ayuu yiri ka Puntland ahaan ka shacab ahaan iyo ka xukuumad ahaan mar uu ka hadlayay arintaas ayuu fariin adag u diray dawladda federaalka oo yiri waa in arintaasi dib loo fiirsadaa waxaan wadabaydeenna daawadayaal dalka ruushka ayaa waxa uu gabi ahaanba qaaday wixii loo yaqaanay lockdownka isaga oo ay dadku aad magaalada Moscow mashquul ugu soo noqotay wadooyinkeedii waaweynaa iyo dhammaan goobihii dukaamada ayaa si fiican loo furay iyadoo ay wali xiran yihiin meelaha qaar se ahaatee inta badan magaalada ayaa waxa u muuqata mid laga qaaday culeyskii maadaama wadooyinka ugu waaweynaa magaaladaasi Moscow ay ciriiri yihiin walise waxa xariman oo aan la furin ayaa la yiri goobihii waaweynaa ee maqaaxiyaha iyo sida biibitooyinka caalamiga ah se ahaatee dhammaan meelihii daruuriga waxyaabaha looga baahnaa waa la furay ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa waxa uu furay shir caalami ah shirkaas oo lagaga hadlayo amaba adduunku iska kaashanayo sidii dawada fasiin ee talaalka ee cudurkan dilaaga ah looga hortagi lahaa dunida dawadaasna loo dirdirgelin lahaa waxa uu yiri ra'iisul wasaaraha dalkaasi waa muhiim inay dunida iska kaashata ayuu yiri la dagaalanka cudurkan dilaaga ah ee diseaska COVID-19 waana inaanu culays ka saarnaa sidii aan u dirdirgelin lahayn soo saaridda dawada fasiin ama talaalka waxaan kaloo idiin haynaa daawadayaal dalka Angola ayaa dhawaan waxa ay G20 ka dalbatay deyn taasoo dalkii ugu horeeyo arintaasi ka jawaaba uu noqday dalka China afayeenka wasaaradda maaliyadda ayaa waxa uu yiri waanu eegeynaa waxaanuna la xiriireynaa dhanka wasaaradda maaliyadda ee dalkaasi Angola waxaanu ka taakuleen doonaa amaba aanu ugu baaqaynaa dawladda Angola inaanu mar walba la garab taaganahay ayuu yiri China oo ah dalka ugu ballaaran ee Afrika xiriirka la leh sanadan ilaa 2010 laga soo bilaabo ilaa 2020 ayaa waxa la sheegayaa dalalka Afrika inuu China deemiyay lacag bilaayin dollar oo kor u dhaafaysa iyadoo ay dhammaan dunidu ka socdaan dibadbaxyo looga soo horjeeday dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin madow oo Mareykanka ayaa dalka Faransiiska gudihiisa waxa iyadana ka bilaabmay banaanbax la mid ah isagoo nin 24 jir ah oo madow dalka Faransiiska hadda ka hor lagu dilay arintiisii ay soo laba kacleysay walow ay dadkuna isku dabaxayaan labada dhacdo iyadoo isugu soo baxeen magaalada Paris dad aad u banaanbaxaya oo isku daray labada dilkii ka dhacay dalka Mareykanka iyo kan ka dhacay dalka Faransiiska mar hore oo aan la marin ay leeyihiin dadku cadaalad ayaa waxa ay dibadbaxyadaan booliska kaga hortageen sunta dadka ka ilmeysiisa iyagoo oo kala eriyaya madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Barack Obama ayaa markii saddexaad waxa uu ka hadlay dhacdadan loo geystay ninkii madowga ee George Floyd waxa uu yiri waxa muuqata buu yiri arintan inay tahay kacdoon isbedel ah oo Mareykan oo dhami lagu doonayo dadka siyaasadda indhaya waxa ay leeyihiin wuxuu hadalkaasi ula jeeday Mr. Obama in wax ka bedel lagu sameeyo dhammaan sharciyada iyo dadka dalka ka howlgalo oo ah inay ayaa leeyahay dhammaan laamaha biliiska iyo qaabka u dhaqmaan iyo shuruucda dalka u yaal wax ka bedel in lagu sameeyo ayuu hadalka ula jeedaa ayaa la leeyahay Obama
dhacdadan oo ah dhacdo aad u soo noqnoqotay ayuu yiri oo taabatay dhammaan qulubta dadka reer Mareykan ahna wax fool xun in ku dhinta nin madow ah qof jilibkiisa isagoo ku haya in ka badan ayuu yiri 8 daqiiqo iyo bar. dhacdadan ayaa ilaa hadda Mareykanka waxa ay ku haysaa dibadbaxyadii dhammaan oo saameeyay dalkaasi Mareykanka. waa Bolomog Media daawadeeltan iyo kulantii dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.